salaamu ullaahi calaykum meel kastoo adduunka dacaladiisa ka joogtaan wararkeennii ciyaaraha kooxda kubadda cagta Paris Germany ayaa 1-0 ku garaacday kooxda Real Madrid wareegii hore ee 16 tartanka UEFA Champions League xilli Lionel Messi laga badbaadiyay rigoore kaasoo ciyaarihii ugu dambeeyay una wax goola ka dhalinay Real Madrid isagoo xalay Courtois ninkaas eebeeyay kooxda Paris Germany guushan ay ka gaadhay Real Madrid oo marti ugu ahayd gurigooda maxaa la dhahaa waxa uu go'aamiyay Dembele ayaa waqti dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu daray kaasoo kubad baasa oo cidhib ah oo ka helay saaxiibkiisa Neymar isaguna wuxuu kala dhex baxay laba daafac oo Real Madrid ah isagoo Courtois dhulka u raaciyay hadda waa Courtois Lionel Messi rigoorada ka badbaadiyay ayaa hadaba maxaa la dhahaa labada lugood dhexdiisa laga dhex saaray kubaddii markaasuu yiri aniga hadaba Messi barataye Messi baa taqaanay aniga miyaad taqaanay bi aniga yaa hadaad Messi taqaanay aniga ima taqaanid bi waxaan ahay gool magafe yaa maanto kalena ana la igu baxsada maanto kalena madaxaana furan Paris Germany ayaa ciyaartan waxay ku bilaamatay dardar xoog leh iyadoo kubadaha gacanta ku hayay dhexda iyo baalayaasha kubadaha ka maamulayay iyadoo maxaa la dhahaa kooxda Real Madrid la saarayay pressure aad u fara badan kubadaha waxa inta badan halis ku hayay ciyaaryahanada PSG kuwaasoo ciyaarta inta badan maamulayay gacantana ku hayay halka Real Madrid ay iska ilaalinaysay inay maxaa la dhahaa gool laga dhaliyo kubada badan oo loo qaatay inay gool yihiin waxa ka badbaadiyay goolkiibaha Herbalijan kaasoo Courtois oo xalay maxaa la dhahaa dadaal aad u fara badan sameynayay marka lagu soo baxsado kubadaha inta badan ka badbaadinayay kooxiisa inaan goolal badan laga dhalin ka qaybtii horena ay Real Madrid ayna sameyn wax fursad ah kaasoo maxaa la dhahaa kubadaba aan gaadhayn xagga xarada ganaaxa PSG waxaana weerarka iyo culaysku uu saarnaa dhankooda iyagoo aan wax fursada helin qaybtii hore ee ciyaarta kooxda waa Real Madrid doodii ugu horeeyayna waxay heleen daqiiqadihii 54 halkaasoo ay ka bilaamatay maxaa la dhahaa inay kubad ay fursad u helaanba kooxda Real Madrid ugu dambeyn Real Madrid ayaa waxa loo dhigay penalty kadib markii khalad lagu galay Dembele waxaana u soo istaagay oo goolka yiri aniga ayaa laadanaya waayo aniga ayaa aqaan Real Madrid waxaana ka soo dhadhiyay 27 gool oo hore kaasoo waxaan doonayaa inaan caawa ku darsado goolkan laakiin Courtois baa yiri aniga hadaba ima taqaanide yaa aniga hadaba saaxiib ku aqaanay soo tuuro bahasha soo tuuro marka waa uu ka badbaadiyay kubadaas wada ay iska khasaariyeen inta badan PSG sida Neymar maxaa la dhahaa Dembele Messi kubada badan oo iska khasaariyeen kama ay faa'iideysan maxaa la dhahaa hadaba daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta kaasoo ahaa ciyaarta intii lagu daray ayaa ismariwaagi waxa maxaa la dhahaa soo afjaray Dembele kaasoo gool aad u qurux badan oo uu kubadda uu ka helay Neymar kaasoo ahay cidhib sidaan hore idinku soo sheegayba ugu shubay kooxda Real Madrid shabaqooda wuxuuna halka ku baday guuldarro xanuun badan kooxda Real Madrid kaasoo maxaa la dhahaa ciyaarta dambe ka dhici doonto Bernabeu xaggaas ayaa la isla tagi doonaa waxa guuldarrada kaga sii xanuun badan waxa xalay laba ciyaartoy oo muhiim ah ay ka qaateen kaadhadhka digniinaha iyagoo hore u qabay waxaana ka maqnaan doona ciyaaraha Casemiro iyo Mendy kuwaasoo qaatay kaadhadhka digniinaha waxayna ciyaarta ku seegi doonaan maxaa la dhahaa ganaax waxaana kaga xun Real Madrid badisadii laga soo badiyay waayo 1-0 waa laga soo kaban karayaa laakiin maxaa la dhahaa marka laba nin oo muhiim ah ka maqan yihiin waxay kugu tahay dhabar jab doona ciyaartaas waxay hadaba ku dhamaato kooxda Manchester City ayaa waxay xasuuq u geysatay kooxda heer Portugal Sporting iyadoo waliba garoonkeeda ku ciyaaraysay Silva oo ninkaas caadi maaha laba gool oo midba midka kale ka daran yahay ayuu ka dhaliyay halka Fedi iyo Marais iyo Sterling ay goolasha iyaguna ay u kala dhalashadeen ciyaartan ayaa waxay ahayd ciyaar aad u qurux badan oo ay soo bandhigtay kooxda Manchester City kaasoo kubadda gacanta ku hayay waxayna
Janis weyn oo lug kula jiraan inay u gudbaan maxaa la dhahaa sideed dhamaadka ciyaaraha waayo waxay ku soo badiyeen 5 gool ayay ku soo badiyeen kaliya haday gurigooda xataa bareeja ku soo dhamaato odayaashaas banaanka ayay iskeeneen hadda carabti banaanka iskeenta Man City ahayd nimanka Man City waxba lagama qaban karo sanadka maantana championka waa looga baqaya sida Premier League loogu baqayo in ayay qaataan ay u haystaan 9 dhibcood ugu hayaan UEFA Champions League sanadka waxay leeyihiin dhaafi maayo nimanka inkastoo maxaa la dhahaa aan la saadaali karin oo naadiyo waaweyn oo khibrad leh ay ku jiraan UEFA Champions League haddana waxay leeyihiin sanadka maanta UEFA Champions na seegi maayo waanu qaadana haddana muddo sanadkii hore haddii Chelsea naga qaaday oo maxaa la dhahaa oo bahalku madax xanuunkii laakiin hadeer chance ayaanu haysanaayo marka nimankaas iyaguna xalay waxay ku soo badiyeen 5-0 hadda waa 5-0 marka nimankaasi inaba caadi maaha kubaddoodu waa waxba lagama qaban karayo niman wax laga qaban karayo maaha Pep Guardiola iyo wiilashiisa maxaa la dhahaa dhiibaya 5 gool u dhiibaya kooxaha marka kooxdii ka hor timaada saas u baqasa sida marka koox walba waxay ku ducaysanaysaa oo dhan baa ka baqaya hadaba kooxda Man City lagamana hortagi karo runtii oo niman wax laga qaban karayo maaha nimanka Man City waa xaggaas iyo Premier League hadaba kooxda Manchester United ayaa maxaa la dhahaa waxay guul weyn ka soo gaadhay kooxda Brighton Cristiano Ronaldo ayaa madax xanuunkii iyo niyad jabkii uu ku jiray 6 ciyaarood ee ugu dambeeyay xalay soo afjaray isagoo yiri ma taqaanin kooxda Manchester United ayaa la wareegtay kaalinta afraad ee horyaalka Premier League kadib markii ay guul aad ugu baahnaayeen ka gaadheen kooxda Brighton iyadoo ay marti uga ahayd Old Trafford Manchester United ayaa labadii ciyaarood ee ugu dambeeyay waxay barbaro ka heleen iyagoo 2 dhibcood oo kaliya hadda ka helay hadda labadii ciyaarood ugu dambeeyay odayaashu aad ayay u niyad jabnaayeen waxayna ka baqayeen kooxdan yar ee dhibka badan orodka badan haday gool ka dhaliyaan inay daafaca ku xidhaan marka xalay ayay iska soo afjareen niyad jabkii ka haystay labadii ciyaarood ugu dambeysay sidoo kale laacibka heer Portugal Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu kaga baxay abaartii gool la'aanta ahayd ee haysatay muddo 6 ciyaarood kaasoo ahayd abaartii ugu dheereed muddo laga joogo 13 sanadood hadda 13 sanadood odaygaas lagama celin jirin shabaqa sidaas u dhashanay ciyaar quriyo gool ciyaartan haduu seego ciyaarta dambe hadda ma seegeen 2 gool 3 gool maxaa kala dhahaa odagii master hat-trick ahaaye Cristiano Ronaldo 6 ciyaarood oo isku xigta ayuuna wax gool dhalin laakiin xalay ayuu soo afjaray isaga ayaana hoggaanka u dhiibay kooxdiisa Manchester United sidoo kale Bruno Fernandes ayaa isaguna ku darsaday goolka oo qaybtii dambe 97 u dhaliyay in dhaweyd kooxda Manchester United wax gool uma dhalin oo isaga laftigiisa abaar ayaa haysatay isagoo xalay buu soo afjaray marka xalay abaarta lagaga baxday kooxda Brighton xalay abaarta lagaga baxay Cristiano Ronaldo labadii nin heer Portugal hadda waxay kaga baxeen abaartii gool la'aanta ay haysatay model ayaa isagana kubad halis ahayd oo qaybtii hore waxa ka badbaadiyay Digaya ninkaas waa badbaadiyaha Manchester United ninkaas hadda waa badbaadiye weyn weeye marka Brighton ayaa 3 jeer ayay qaybtii hore toogteen goolka Manchester United iyagoo rabay inay soo afjaraan muddo 19 safar oo ay u galeen kooxda Manchester United gurigooda ayna wax guul ka soo gaadhin marka Manchester United iyaduna waxay soo bandhigtay kubad aad u heer sareysa iyadoo maxaa la dhahaa weerar aad u fara badan ay sameeysay kubaddooduna aad ayay u fiicnayd kooxda Manchester United sidoo kale kooxda Brighton ayaa waxay qaadatay red card daqiiqadii 54 iyagoo ku soo koomay 10 ciyaartooy oo kaliya kooxda Manchester United ayaa kaalinta afraad soo gashay waxayna yeelatay 43 dhibcood iyadoona kala baxday kooxda West Ham kaalinta afraad oo u dhacday iyadoona oo maxay haysataa 41 dhibcood ayay haysataa wararkeena ciyaaraha hadaba intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa wabillahi tawfiiq saaxiibayaal yaan layga ilaawin subscribe-ka iyo like-ka iyo comment-iga iyo share-ta haddaad ila joogtayna waad mahadsantahay haddaad cusub tahayna soo dhawow saaxiibayaal